biriishka kala jab oo ku yaala magaalada berbera duleedkeeda ahna ka ugu dheereeyay Somaliland ayaa dhaawac culus oo soo gaadhay labadii bilood ee u dambeysay. waxaa saaka biriishkaasi ku dhacay booyad shidaal taasi oo ku socotay magaalada Cerigabo iyadoo oo baabuurkaasi labadii qof ee la socday darawalkii Krishbogiba ay halkaasi ku dhinteen. sidoo la soconana muddoba 3 ama 4 jeer ayaa warbaahinta laga sii daayay dhibaatada ka taagan biriishkaasi iyo halista uu ku hayo baabuurta marta. barsaabka saaxil ayaa hadda muddo bil laga joogo isagoo ka hadlay isagoo baaq u diray wasaaradda hay'adda wadooyinka ee Somaliland inay degdeg wax uga qabato biriishkaasi. haddaba saaka shilkaasi markuu dhacay ayaa warbaahintu halkaasi booqatay waxaana wax ka weydiisay qaar ka mid ah dad iyagu sheegay inay goobjoog ahaayeen ay wadada mariyeen xilligii booyadaasi ay ku dhacday goobtaasi. waqti la galay barta go'an ee biriishkana maalinba maalinta ka dambaysa wuu sii weynaadaa. dad baa gooya oo qoda gaarigana arkaysaan halkaasuu ka soo duulay halkaa ayuu ka soo duulay waxaanu ka dhuftay godkii uu lugta la galay markuu taayir kula dhacay gaarigii wuu dhuftay darawalkii. laba ninba ayaa imika halkan ku weyn naf waay ma garatee shidaalkii waa ka halkaa qulqulay arkaysaan halku ka soo duulayna waa arkaysaan. de waxaan u sheegaynaa wix kasto qof kasto mas'uuliyad ka mid ah in sidan meeshan wax laga qabto. gaarigan markuu dhacay gaarigu daba socday gaarigi daba socday ma biriishka wax calaamadii ma gaarigaas markuu soo galay wax allaale wax calaamada biriishka yaal gaarigu soo galay ma jiraan. waa gaarigi saddexaad meesha ku awarma dawladda cashuur ma ka qaadaa baabuurta waxta kulana iyo halba cashuurta bay guranaya. waxay isaguna goobta shilkaasi ka dhacay ka hadlay taliyaha qaybta taraafikada ee gobolka Saaxil oo isagu digniin u diray baabuurta halkaasi marta in ay xawliga dhimaan maadaama biriishka dhaawac weyn soo gaadhay. halkan goobtan jooga waxa weeye biriishkii dowladda jiray kala jab ee isku xiriyay magaalooyinka gobolkan Saaxil iyo Togdheer inta u dhaxaysa sheekh Sugaysa waxa la yiraahdaa kala jab baa la yiraahdaa. baabuurkani wuxuu u socday xagga bariga waxaanu ka tiibi gobolkii Berbera ka soo baxay shidaal boostay wuxuu ka duulay biriishka kala jab. laba nin baa gaariga saaraa kii waday iyo kii socday Krishbogiga labadiiba waa dhinteen. isbitaalka loo qaaday dhaawac baa lagu qaaday isbitaalka la geeyay labadiiba waxba kala dambeeyeen qadar bay kala dambeeyeen labadiiba saygu maqala waa dhimasho ilaahay raad. waxa wadayaasha fariintan diray waxa weeye gaadiidka xawli ku soconaya wadada maraya xawli ku soconaya ee biriishada maraya inay ka taxadiraan oo taxadirka waxa weeye gaariga response waxa ka masuula wadaha ka masuula inuu gaariga si wanaagsan wado oo aan waali ku jirin oo socod xawli ku jirin wax lagu ordiyaan garan maayo meel loo soo garan maayo tii qadarku halkiisa laakiin hadana waxa masuula wadaha gaariga inuu aad u taxadiro. sababahaas keeni kartaa sababahaas ka iman kara dhibtaas ka iman karta khasaaro mood iyo noolba waadi ka arkaya wixii ka dhacay biriishka hoostiisa sidoo noqday gaarigaas booyad buu ahaa saaran waa 8 bool gaariga la yiraahdo uu kala go'ay halkaas uu soo duulay waa meel aad u dheer saarahaas nafsi maalbu ayaa ku yimi halisna waxay ku geli karaan ummadda dul maraysa kale ee soconaysa meesha. marka wadayaasha waxaan ka codsanayaa oo fariin u diraya inay taxadir muujiyaan. waxaa iyaguna halkaasi yimid markii shilkaasi dhacay ee warka ay heleen barsaabka Saaxil iyo duqa magaalada Berbera oo iyagu indhahooda ku arkay xaaladda adag ee halkaasi ka taagan iyo biriishka dhibaatada ka taagan